asalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad daawanayso muuqaalkan dabcan waxaad doonaysaa inaad wax ka beddesho habdhaqankaaga hubaal sidoo kale waxaad ku hanweyn tahay inaad horumariso cilaaqaadka kaala dhexeeya asxaabtaada bal ila soco. buuggan How to Make Friends and Influence People sidee asxaab loo kasbadaa loona saameeyaa dadka waa buug uu qoray Dale Carnegie 1936 in ka badan 30 milyan oo nusqadood ama koobi ayaa laga gatay waxaana gundhig u ah shuruucda aad dadka kula macaamilayso iyo sida aad u kasban lahayd. qodobka ugu horeeya ee aan ka baran karno buuggan ayaa ah ugu wac dadka magacyadooda. magaca waa qofka aqoonsigiisa waana waxa qofka ka dhiga mid ka duwan dadka kale. inaad xasuusnaato qofka magaciisa uguna wacdo waxay qofka siinaysaa dareen aad muhiim u ah. waa ereyga ugu muhiimsan magacu qofka luqadda uu ku hadlo. inaad qofka ugu wacdo waxay ka dhigan tahay ammaan soo dhoweyn ah iyo inaad qofkaas dareen u hayso. sidoo kale inaad ilowdo ama si khaldan ugu dhawaaqdo waxay tilmaamaysaa inaadan kala jeclayn barashadiisa. isticmaal in badan qofka magaciisa marka aad sheekaysanaysaan. taasi waxay kaa caawinaysaa inaad xasuusnaato sidoo kale inaad macaaniyso waxa aad u sheegi qofka ku dhagaysanaya. isku day inaad isku xirto qofka magaciisa iyo sheekada si wada jir ah si aad u dhisto sheeko sawir fog muujinaysa. haddii uu yahay magac uguba ama kugu cusub isku day inaad qofka weydiiso sida ugu saxan ee loogu dhawaaqo. haddii aad tahay qof ganacsada ah ha iloobin inaad xasuusnaato dhammaan magacyada macaamiishaada. waxay taasi siinaysaa dareen soo dhoweyn iyo rabitaan. qodobka labaad qofka marka aad la hadlayso indhihiisa eeg. indha eegiddu qofka marka aad la hadlayso waa nooc ka mid ah luuqadda jirka taasoo muhiim u ah wada sheekaysiga labada qof. xilliyada qaarkood dhaqdhaqaaqa xubnaha jirka iyo indhaha waxay ka muhiimsan yihiin hadalka caadiga ah. inaad qofka indhihiisa eegto marka aad la hadlayso waxay tilmaamaysaa inaad si fiican u dhagaysanaysid dhugtaaduna soo jeedo. sidoo kale qofka aad la hadlayso inaad indhihiisa eegto waxay ka dhigan tahay inaad tahay qof isku kalsoon misena ixtiraam badan. haddaba yaa adduunka jooga oo aan rabin inuu noqdo qof kalsooni badan? dabcan waa maya. taasina waa sirta labaad ee aan ka faa'iidayno buuggan. qodobka saddexaad u mahadceli dadka. qofkaan u mahadcelinin dadka eebbe uma mahadnaqo ayuu yidhi nabiga sallallahu calayhi wasallam. bini'aadan ahaan waxaan mar kasta si xooggan ugu baahannahay in muhiimad nala siiyo si la mid ah sidaan ugu baahannahay cunto iyo biyo. mahadcelintu waa waxa ugu weyn ee qofka ku dareemayo inuu muhiim yahay. xasuusnow qof walba aad la kulanto in si uu kaaga duwan yahay isla mar ahaantaana wax ku dheer yahay. ku dadaal inaad kaga mahadiso kala duwanaanshaha. hayraysan howl kasta oo fiican oo uu qof kuu qabto ama kaa caawiyo kagana mahadceli hawshaas. sidoo kale dabci fiican ee uu qof kuu muujiyo ama kugula dhaqmo. ka digtoonow inaad si aan daacadnimo ahayn qofka ugu mahadiso ama aad ku bogaadiso howl uusan qaban maxaa yeelay taasi waa munaafiqnimo. qodobka afraad iska ilaali muranka. way adag tahay inaad ku guulaysato dood muran ah maxaa yeelay qofka aad la murmayso ma ogola inaad ka guulaysato. tusaale ahaan qofka waxa uu jecel yahay si muran ah ugama dhaadhicin kartid inay waxaasi qaldan yihiin maxaa yeelay ma aaminsana. qofka inaad u sheegto inuu qaldan yahay waxay dareensiinaysaa hoos dhigid. waana hubaal inuu isdifaacayo si kastood u saxan tahay waana dabci aadmiga ku abuuran. waxa keliya aad muranka ka heli kartaa waa nacayb iyo kala fogaansho. haddii uu qofka kugula murmayo wax aad aaminsan tahay inay qaldan yihiin laakiin aad doonayso inaad soo gabagabayso doodda si fudud aqbal murankiisa waxaana halkaasi ku idlaanaya dood oo dhan. haddii qofka kuula yimaado dood muran ah isdeji. ha raacin shucuurtaada hore. xakamay xanaaqaaga iskana ilaali hadal xanaf leh oo sii kicinaya xaaladda. uga mahadceli qofka kaala soo horjeeda doodda si daacad ah xiisahooda ku aadan inay kuula doodaan u qaado inay yihiin dad ku caawinaya. soo dhoweey kala duwanaanshaha qofka kaala dhexeeya ama idinkala dhexeeya uguna mahadceli fikradaha cusub ee uu qofka kugu soo kordhinayo. si fiican u dhagayso dadka kuna dhiirigeli inay hadlaan. waa qodobka shanaad waxaad noqon kartaa sheekeeye dilac haddii aad tahay dhagayste fariid. uma baahnid inaad hadasho haddii uusan marka horeba qofka kaa dalban. qofka noloshiisa waa waxa ugu muhiimsan ee uu jecel yahay. si kale qofka madaxa xanuunkiisa inuu kuu sheego ayaa ka muhiimsan inaad u sheegto gaajo laynaysa malaayiin qofood. inaad qofka u ogolaato inuu hadlo waxay siinaysaa muhiimad aan qiyaas lahayn. haddii aad doonayso inaad asxaabtaada kasbato u ogolow hadalka inay sii wataan. dhanka kale inaad markasta ka hadasho arrimo kuu gaar ah ama fiicnaansho adiga ku qoseeya waxay qofka kale dareensiinaysaa hoos dhigid hinaaso iyo xasad. inta badan dadka xanaaqsan waxay jecel yihiin in la dhagaysto si la mid ah dadka macaamiisha
kuu ah. Haddii aad u dhagaysato si dulqaad leh kadib aad ka ogolaato wixii tabasho iyo khalad hubaal waxay markasta ahaan doonaan kuwa kugu faraxsan la jirkaaga misena aan ka caajisin inay mar kale dalab kaa soo yeeshaan. Aan soo gunaanadee waxaa laga yaabaa in muuqaalkan muhiim u yahay qaar ka mid a asxaabtaada baraha bulshada. Ka waran haddii aad la wadaagto. Sidoo kale ha iloobin inaad subscribe dhahdo kanaalkan misena aad furato gambaleelka siiska, maxaa yeelay waxaan isbuuc kasta kaa caawin doonaa qodobo iyo tallaabooyin wax badan ka bedelaya noloshaada. Sidoo kale inaan kuu soo khulaaseyno buugaagta loogu akhriska badan yahay caalamka in ka yar 10 daqiiqo. Waad ku mahadsan tahay inaad nagu soo biirtay.